inkastoo ay ku jirto qasweyn iyo hubanti la'aan mustaqbalka ah oo xitaa tababarayaashu ay isku aamini waayeen. haddana Chelsea ayaa ah kooxda labaad ee haysata ciyaartoyda ama safka ugu qaalisan kubadda cagta adduunka. laakiin Chelsea waxay taasi u joojin weysay inay ka hor istaagto guuldarrooyinka isdaba joogga ah ee macallin walba soo wajahaya. Manchester City waa naadiga haysta safka ugu qaalisan kubadda cagta adduunka, waxayna iyaga iyo Chelsea yihiin labada naadi ee kaliya ee ciyaartoydoodu ay ku kacayaan qiimo ahaan ama ay ka sarreeyaan 1 bilyan oo euro. sheekadeenna maantana waxaan idinkula wadaagayaa 10 kooxood ee haysta safka ugu qaalisan ama iskuwaadkoodu uu yahay mid ama kaag iyo fajax kugu abuuraya. hadduu muuqan ku soo gaaro waxaan kaa codsanayaa inaad ila gaarto gabagabada si aad u ogaato xogta iyo kooxda koowaadba. nambarka 10aad waxaa ku jira kooxda Tottenham Hotspur. kooxda Ingiriisku waxay safkoodu ku fadhiyaa 680 milyan oo euro, taasi oo ka dhigaysa mid ka mid ah kooxaha haysta xidigaha ugu fiican dunida. kaalinka 9aad waa Barcelona. kooxda la filayo inay ku guuleysato Liga Spain ayaa xidigahoodu waxay ku kacayaan 767 milyan, waana marka loo eego meeshii laga filayay meel aan ahayn, maadaama Barcelona ay inta badan ku jirtay kaalinka 1aad ama 2aad. 8aad waa Manchester United. kooxda Red Devils ayaa safkeedu waxa uu ku kacayaa 795.7 milyan oo euro marka loo eego, waxayna ka fadhisaa kooxaha adduunka kaalinka 8aad. Real Madrid ayaa ku jirta kaalinka 7aad. kooxda ku guuleysatay Champions League safkoodu waxa uu ku kacayaa 860 milyan. Liverpool ayaa 6aad ah iyadoo safkoodu ku fadhiyo 879 milyan. Paris Saint-Germain oo ay u ciyaaraan afka hore ugu halista badan dunida, inkastoo ayna guulo ka gaarin tartanka Champions League, haddana 882 milyan oo euro ay ku fadhiyaan xidigaha safka kooxda PSG. Arsenal hogaamiyaasha liiga Ingiriisku safkooda haddii suuqa la geeyo waxaa lagu heli karaa 890 milyan, waana kooxda kaalinka 4aad ee ugu qaalisan shaxdoodu dunidaynu ku noolnahay. Bayern Munich waa 3aad, 979.7 milyan oo euro ayay ku fadhiyaan safka kooxda lagu naanayso Bavarianka, halka kaalinka 2aad ay ku jirta Chelsea 1.2 bilyan ayayna ku fadhisaa kooxda kaalinka 11aad ee liiga Ingiriisku, wallow marka loo eego qiimaha safkooda iyo halka natiijadoodu ayna iswaafaqsanayn. kaalinka 1aadna waa Manchester City. kooxda kaalinka 2aad Premier League kaga jirta waxaa safkooda lagu qiimeeyaa 1.5 bilyan oo euro, taasi oo ka dhigaysa kooxda ugu qiimaha badan safkooda marka loo eego kubadda cagta adduunka. haddii aad ila soo gaartay gabagabada waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka.